maalmahan magaalada Buuhoodle waxaa ku sugnaa abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Sooraan iyo koox kale oo ka socotay iyo koox kale oo fulanin oo la socday oo ka yimid magaalada Burco. abwaanka ayaan kula kulmay hotel Badar oo ku yaala magaalada Buuhoodle waxaana aan weydiiyay inuu faahfaahin iga siiyo socdaalkiisa ku yimid Buuhoodle isagoo sheegay in Buuhoodle muddo dheer ugu dambeysay isla markaana gobolka ku aaminsanaa wax kale balse hadda deegaanku uu yahay deegaan nabad iyo horumar badan ka jirto. warxmatullahi barakaatuhu ku soo Buuhoodle bal dareenka ka marka hore dareenkayga aad buu wanaagsan yahay waa mid farxadi ay ku dheehan tahay waxa weeye Buuhoodle markii hore sida marka hore aan ka qabay iyo sida aan ku arkay waa si aad iyo aad u kala fog waxaan ku arkay dad qalbigoodu aanu naxli lahayn qalbigooda aanay xumaan ku jirin dadku isyeeliyeel ma samayn karo qofku wax kasto uu isyeeliyeel ku sameey haddana way ka muuqataa laakiin dadku mid yar iyo mid weyn waa dad uurkooda iyo qalbigooda xaaran yihiin waa dad mudan waa dad nabadgelyadooda aad iyo aad ay u hagaagsan tahay waa dad maanta la oran karo nabadgelyada wadanka dunida bad maanta taala waxa ugu qaalisan Buuhoodle taala laakiin dadka qaar waxay ka qabaan inay tahay meel si yar wax laysaga dilo meel dadkaasuna waa dad aan aragba marka waxa weeye wax kastaana waxay ku fiican yihiin marka aad aragto ayuun bay isbedel ku dhaca waxaan u maleynayaa meelahan Buuhoodle hay'adiisa waxa taagan nin qaawan oo dadka wax kale u sheego yiraahdo meeshan aad ku sii socotaa waa sida anagu waxaan jabin doonaa oo ridi doonaa ninka qaawan ee dhex taagan Buuhoodle iyo ummadda waxaan leenahay Buuhoodle aad iyo aad bay aan uga helay sidii markii hore aan anagu ka qabnay waxaan noqon doonaa meel anaga laftigayga xudur loo noqota oo aan markasta ka duulno waayo waa meel ay taalo nabadgelyo waa meel qof kastaaba ku noolaan karo qof kastaaba waa meel uu ku noolaan karo waxay tahay Sooraan adiga horta goorma ku horeysay Buuhoodle ku dhimatay Buuhoodle 68 baan mar imi waqti badan ma joogin maanta ay igu xigtay ilaa xalad dadku waxay leeyihiin adiga xamar ku socdaayo baasabooro Buuhoodle yimaado maxaad ka leedahay xamar maxaad ka leedahay horta heede marka hore xamar buu socdaa iyo sidaan ugu socdaa xamar hadaan u socday horta mushkilad weyn maaha haddaan Buuhoodle joogona dee Buuhoodle xamar looma maro laakiin anigu halka kan waxaan u imid gobolkan waa gobol taariikhiyana waa gobol ay ka soo jeedaan abwaantii Soomaaliyeed oo dhan haddii yahay Sayd Maxamed Cabdulla Xasan haddii yahay Salaan Carabi halkan ka soo jeeda Samatar Baxnaan Hadraawi Cali Buux dee lama tirin karo tiro laguma keeni karo inta abwaan ee magac leh ee ka soo jeeda gobolkan sida awgeed wuxuu mudan yahay mar kastaba inaanu nimaadno wuu mudan yahay maadaama ay intaasba ka soo jeedaan oo maanta suugaanta nooga horeeyay ama taariikh kula dunida Buuhoodle waa meel taariikhiyana waa meel la oran karo Soomaali ifka timaada waxa ugu horeysay Buuhoodle iyo Sayd Maxamed Cabdulla Xasan Soomaali ka horeysay lama aqoon maalin Soomaali waxa ugu horeysay waa dadkii Afrika marka la diyaarad baa lagu weeraray waxa lagu weeraray waa reer Buuhoodle ahaayeen iyo daraawiishtii sayidka la socotay waa meel taariikhdan leh dadka qof kasta hadii maanta wixii uu lahaa la siiyo idaba ismay qabsateen taariikhda intan la eeg ee maanta Soomaali la oran karo iftiinkaba waxa keenay waa reer Buuhoodle iyo Sayd Maxamed Cabdulla Xasan Soomaali ka horeysay oo la yiqiinay ma jirtay mugdibeen ku jiray sida awgeed waa meel aan mar kasta mudan cid kastana waa meel xudur u noqon karta waanay u tahay maanta waa meel kasta xiriirin karta bulshada dad badan baa waxay ka aaminsan ku jirta xitaa sida aad sheegtay in meesha la isku dilo oo la isku qasho asxaabtaadii jawaan iyo barhaabro ama hadu sheegay dadka Soomaaliyeed jawaan iyo asxaabtayda ma ahay Soomaaliba waxaan sheegayaa hadafka waxa laga aaminsanaa meeshan waxa dad si yar wax ku dila laga aaminsanaa waxa la aaminsan ninka reer Buuhoodle maada ku dhici kara inuu wax ku dilo baa laga aaminsanaa meel fawdada baa laga aaminsanaa laakiin waxay tahay marka aad timaadaad garanaysaa waxa ay tahay waa meelan cidna naxli u qabin cidna xumaan u qabin cidna uurkeeda waxba ugu jirin waa meel nabadgeliyo waa meel qof kastaaba gidaa halka uu fadhiisto ku noolaan karo cid sida u eegaysana aanay jirin waa la lahaa ma maqashay caruur yar reer guuraraac la yiraahdo caruurta ka soo xaraa reer guuraraac ma jiro marka waxa weeye Buuhoodle iyo dadka waa loo kala warrami jiray laakiin waxaan leeyahay qof kastaba ilaa aad aragto war bila aadan ha qaadanin sida aan ku aragnay Buuhoodle Soomaaliyeed baa ka mid caanka
ma dhaaftan Somaliland oo buntland iyo Soomaaliyeed kale iyo Jubbaland iyo inta dowladdeegaanka aad ka runtii alla ya mahad celinayo maxaad mar Soomaalidu uga jaal wadeen oo fankiina iyo arrintiina u sheegay Soomaalidu soo noqoto maxaad kaalkan waqti kasta wax iska qoran wixii kasta uu qoray anagoo meel kasta niyadda ku haynaa inaan tagno meelaha kamid ah oo sida kilka shanaad aan loo jeer tagnay meelaha ka badan baan doonaynaa inaan tagno hadii Ilaahay ka dhigo maantana ummadu ilaa ay bislaato cid wax loo sheegi karaa dadkii maanta si weyn yariya insha Allah waxay noqon doontaa wanaag baa ka dambeyn doona wax kasta oo dhibaato yimaado wanaag baa ka dambeyn doona waan ku talagaleynaa laakiin inaan tagno insha Allah فلاني باكتي دوان مقدشو أدان سؤال شديد فقول عليه إذا كسرت السماء للآن الولايات كسر سين أظن أنا محاكم في الدات الثانية وحبكم ما تشبنا وحلا لا حكوا تشبنا ما تشلان مشكلة معها وضدكوا ويسكت مركو هري ضدكوا مركو قف كستو ميل شو بدي صومالي وشيغانيا مركو وحبكوا وحلا لا حكوا تشبنا ما تشلان قبل كلام